Waxaa laga joogaa sanad iyo maalin dheeraad ah. Waa wax cajiib ah sida waqtigu u cararayo. Waxaan xasuustaa habeenkaygii ugu horreeyay ee Nairobi, sida ay hawadu uga duwaneyd halkii aan ka imid. Hawada aan neefsanayay waxay la culays ahayd suurtagalnimada waxyaabaha aan la aqoon ee aan wajihi karo. Waxaan imid aniga oo garabkayga midig ku wata shandad yar, garabka bidixna uu la liicayo farxad iyo walaac aan qalbiga ka dareemayo. Waxaan ka soo baxay eelaboorka Jomo Kenyatta anigoo isweydiinaya bal inaan mar uun halkan ku dareemi doono xasillooni, ama inay ii noqon doonto meel aan dhaho waa ii hooy. Hadda sanad kadib, Nairobi waa sidii laxanka hees aan jeclaa oo aan bartay sida loo garaaco, kana xifdiyey gunta hoose ee qalbigayga. Muddo kadib waxaan magaaladan ku leeyahay goobo aan jeclahay sida maqaaxida Vesta, halkaas oo ay Lydia sii og tahay dalabkayga cunto ka hor inta aanan hadlinba. Jidadka dhaadheer ee keynta Karura ee harka qabow oo aan aado marka fikraduhu maskaxdayda hubanti la'aan hareeyaan. Suuqa Tom Mboya oo aan ka bartay sida iibka looga gorgortamo, dabcanna maaha si quman, laakiin ugu yaraan si aanan ugu muuqan qof shisheeye ah. Waa qasab inaan dhaho wax iga dhin, aniga oo aanan weliba muujinayn inaan ahay nolol diid hortaagan rajada ganacsadaha. Hadda magaaladu iima eegto sidii qof shisheeye ah oo indhaha way iga leexisay. Si wanaagsan ayaanu isu baranay labadeennu. Ilaa iyo markii aan bartay basaska matatugu, weli waa ii cajaa'ib. Waa fawdo nololeed oo taraafikada si kalsooni leh ayuu ku dhex maraa. Waa kalsooni aanan weligay yeelan doonin xitaa haddii aan isku dayo. Kaygii koowaad ee aan raacay, kirishboyga lacagta qaadayay, ma hadal badnayn. Marka uu lacagta ku weydiiyo, si dhib yar ayuu dadka uga taabanayay garabka, kadibna ugu tilmaamayay warqad uu ku qoran yahay lambarka lacagta lagu dirayo. Isfahankaas aan erayada u baahnayn waxay ila ahayd dareen suugaaneed. Waa fahmid aamusan oo dhex maraysa dad aanan is aqoon, balse ay Nairobi ka wada dhigtay kuwo isu dhow. Inta baska wada saaran, waa kuwo mudan inay dhibka isugu samraan, iyaga oo si hadaldaa ah kuraasta baska u fadhiista, maadaama ay uurka ka og yihiin daqiiqado gudahood in la kala tegi doono, una badan tahay inaan dib laysu mudan mar kale. Roobku halkan si lama filaan ah ayuu ku yimaadaa. Hal daqiiqo cirka wuu cad yahay, midda xigtana roob da'ay ayaa waddooyinka u beddela webiyo. Horey waxaan u necbaan jiray sida uu roobku u yahay lama filaanka, laakiin hadda waan ku nafisaa. Haddeer roobka Nairobi keliya iima ahan cimilo isbeddeshay, ee waa ii fursad marmarsiyo oo aan kula kulmo dad meel kaga gabanaya roobka, kadibna aan sheekada iyo qosolka kula wadaago ilaa uu roobku ka joogsanayo. Sanadkii hore dhammaaday waxaa jiray maalmo kelinimadu aad iigu cuslayd, habeenno badan oo ay magaaladu u muuqatay mid aad u weyn, oo si kastoo wehel aad u raadisid aan kaa bi'in karin cidlada iyo marnaanshaha gudaha ah. Laakiin dhab ahaantii kurba iguma hayn, oo hadda waxaan u xusuustay cidladaas keliya inaan wax qorayo, ee ma ahan inaan xumahay. Beddelkeeda waxaan xusuustaa fiidadkii badnaa ee aan sheekooyinka ku qaatay, naxariista shisheeyayaal noqday saaxiibo dhow, iyo diirimaadka magaalo aanan ii ballan qaadin inay i soo dhoweyn doonto, balse ii oggolaatay keliya markii aan anigu si bilaa shuruud ah laabta ugu furay. Waxaan go'aansaday hadda kadib inaanan sii tirin maalmaha 100, 200, 300. Markii hore waxay ii lahaayeen macno, laakiin hadda maya. Waqtiga halkan aan ku qaadan doono ma ahan mid lagu cabbiri karo tiro, balse shucuurtayda maalinlaha ah iyo xaaladaha aan sida joogtada u wajaho ayaa noqon doonta xusuus qor laabtayda ku waarta, oo aan kolba dib u daalacan karo, naftaydana mar labaad ku baran karo. Waxaan go'aansaday inaan dareemahayga oo dhan siiyo carafta nyama choma, oo ah qaabka macaan ee hilibka ariga loo dubo, ee hawada waddooyinka magaalada dhex sabaynaya, iyo iftiinka dahabiga ah ee qorax dhaca ee ay magaaladani caanka ku tahay. Waxaan hadda si fiican u dhadhansan doonaa guusha yar ee aan ku dareemo fahamka weero Swahili ah oo horay aan u qaldi jiray. Waxaan hadda kadib kula noolaanayaa Nairobi
oggolaanshaha inaanan mar dambe ku dareemayn sidii qof cusub oo qariib ah. Beri waxay noqon doontaa maalinkii 368aad ee aan joogo. Insha Allah waxay u imaan doontaa sidii maalmihii kale ee la soo dhaafay. Waxay iska noqon doontaa maalin lama filaankeeda leh oo iga sugaysa sida ugu wanaagsan inaan u qaabilo wax filasho ah aniga oo aan uurka ku haysan, hase yeeshee baraarug nafeed qaba. Waa qalinkii Naasir Cali. Waxaan rajaynayaa saaxiibayaal inaad ka bogateen qormadan quruxda badan. Inala wadaag wixii kaa soo jiitay intii aad dhagaysanaysa ama daawanaysay qormadan ama muuqaalkan. Sidoo kale la wadaag asxaabta kale oo muuqaalka inoo sheer gareeya.